السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعنا ونكتن سود هذا إن شاء الله تعالى هنكمل عنا واللسون 1 عشركي كوبات بارتي 13 قبتي 16 وأنا English speaking وحنا مرينا questions سؤاله and answers جوابه مركا قيبتي اللبات عين تلقاضنا إن شاء الله تعالى مركا أنا صعنا مركا وحاهلي و تريسا إيه سيلفيا did Mrs. Robinson help me مية عاوسي يعني مرو روبنسون مية عاوسي مركا ميسيس ألو رواقيا ميسيس ألو رواقيا مرو ألو قوضا مركا did Mrs. Robinson help me مية عاوسي يعني مرو ذا روبنسون مركا سيلفيا waxay tiri yes ha she helped you a lot wax badan ay ka caawisay she was waxay ahayd your mentor qofka markaa yacni mentorkaaga ah mentorna waa soo qaadana waxa weeye qofkii markaa ku hagayay oo wax kasta oo kaa hor yimaada ku tilmaamayay ahayd markaa Teresa maxay leedahay did Mrs. Robinson help me Mrs. Robinson miyay caawisay yes ha she helped you a lot wax badan ayay ka caawisay she was waxay ahayd your mentor qofkii markaa ku hagayay markaa Teresa waxay leedahay Teresa what is Sylvia going to do Sylvia maxay doonaysaa inay samayso what is Sylvia going to do Sylvia maxay qabanaysaa markaa ma maxay samaynaysaa markaa ma maxay doonaysaa inay samayso she is going to a job fair waxay aadaysaa maxay job fair يعني carwada shaqada oo ka dhacaysa at the convention center xarunta markaa kulamada markaa ada convention center markaa she's going to waxay aadaysaa a job fair carwada yani markaa shaqada oo ka dhacaysa at the convention center xarunta markaa kulamada markaa okay Sylvia waxay tiri what should I take to the job fair what should I take maxaan u qaadanayaa should يعني waxaa yiraahdaa waa helping verb waa ficil caawiye laakiin should macna kaligeed ma laha isticmaalkeedu laakiin wuxuu awood u leeyahay waxa weeye ku habboonaasho salaam markuu leeyahay what should I take يعني maxaa ku habboon u qaataa to the job fair carwada markaa yani shaqada marka sidaad garanaysaan waxaa jira can waa karid يعني waxaa jira maxaan ku raahdaa yani maybe waxa laga yaabaa may waxa marka waa la yaabad laakiin tan waxa uu jirtaa meesha should macna gooni ama yeelato laakiin akhlaaqiyadka marka loo eego waxa laga wadaa ku habboonaasho salahan waxa yiraahdaa you should do that waxa habboon inaad sidaas samayso way marka what should I take maxaan qaataa oo qaataa ku habboon to the job fair markaan ka hadlayno carwada marka shaqada marka ay leedahay Sylvia marka Teresa waxay tiri you should take waa inaad qaataa you should take waa inaad qaataa copies yani koobiyada of your resume oo ah marka yani CV-gaaga marka resume waxa la yiraahdaa CV-gaaga marka waxay leedahay maadaama ay tahay xaruntaasi xarun ay ku kulmayaan shaqaalaha yani ay ku kulmayaan yani nimanka maarta yani iskale kambaniyada faraha badan oo doonaya shaqaale soona bandhigaya marka yani baahiyahooda marka aad waa inaad qaataa maxay koobiyada CV-gaaga marka you should take waa inaad qaataa koobiyada of your resume marka vocabularies kalimaad marka vocabulary soo maxay waa kalimaad marka intaan kalimaad ku gudbin hal mar soo dulmaro did Mrs. Robinson help me Mrs. Robinson may caawisay yes she helped you a lot wax badan bay ka caawisay she was waxaad your mentor qofkii marka mentorka ku ahaa oo ku hagayay marka what is Sylvia going to do Sylvia marka maxay doonaysaa inay qabato she is going to a job fair waxa u socotaa yani carwo shaqo oo ka dhacaysa at the convention center marka xarunta marka kulamada ama shirarka what should I take maxaan u qaataa to the job fair yani job fairka ama carwada shaqada you should take waa inaad qaataa copies of your resume marka koobiyadii marka yani CV-gaaga marka
waxaad ogaataa marka cashir kasta oo qaadano markuu conversation dheer la qaato waxaa ku xiga Q&A questions and answers kabacdina waxaa ku xiga isla cashirkaas oo laga saarayo vocabulary kalimaad marka vocabulary kan soo asal kalimaad kan qaadanay oo garanaysaan oo ah vocabularies waa kalimaad waxaa koob ka marka graduate oo macnaheedu yahay qalinjabin mentor waxaa yidhahdaa waa qofka yacni shaqadan aad doonaysa inaad qabato qof hore usoo qabtay oo aqoon u leh oo markaa garanaya khasaaraheeda iyo faa'iidadeeda marka qofka ku hagaya waxaa la yidhahdaa mentor markaa job fair waa carwo shaqo markaa waaye fair waa carwo waaye waad maashaan inta badan book fair baad maashaan carwada buwaagta book fair job fair marka fair waa carwadii jobna waa shaqadii haddii book leano waa book fair marka carwada buwaagta saas bay u qoran tahay haddaad aragtaan yani waad eegi kartaan meelaha markaa yani lagu qabto yani buwaagta waxaa lasoo qoraa book fair job fairna waa maxay carwada shaqooyinka markaa convention center waa maxay xarunta kulamada waa meel ay isugu yimaadaan different employers dad markaa yani companiya kala duwan wata oo doonaya markaa inay helaan shaqaale markaa oo soo bandhigaya maxay baahiyadooda shaqaaluhuna halkaasay tegayaan si markaa iyaguna ay uga helaan maxay shaqo markaa convention center xarunta kulamada markaa flyer horaan soo qaadanay waa xayeysiis yani la qoro oo yani computerkaas ku qoraysaa waa daabacaysaa warqad markaa ay ku qoran yihiin kambanigaaga wuxuu yahay waxaa weeye marka la joogo convention center xarunta markaa kulamada ayaa dadka u dhiibaysaa marka warqadaas marka maxay kaa anfacaysaa in la ogaado informationkaaga markaa oo markaa sidaas waxaad ku samaynaysaa xayeysiin qofkii rabaana ku imaanaya markaa flyer waa qayb kamid xayeysiinta waana warqad la daabacayo warqadaasna gacanta lagu qaadaya qofkaasna waa loo dhiibaya markaa resume waa CV-ga resume waa CV waa soo garanaynaa waa dokumentiga uu ku qoran yahay qofka yani shaqaalaha shaqada doonaya aqoontiisa iyo dadkii ka mas-uulka ahaa iyo khibradiisii markaa waa resume la yidhahdaa markaa vocabularies waa kalimaadkii graduate qalinjabintii mentor qofkii markaa yani mentor ku ahaa ama ku hagayay job fair waxa weeye carwadii shaqada convention center waa isla fahnay waa xarunta kulamada flyer waa warqadii aan ku sheegnay xayeysiinta ee dadka loo qeybinayo resume waxa weeye iyaduna waxa weeye waa CV-gii markaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh soo dhawaada insha allahu tacaala halkan waxaan qaadan doonaa waa lesson 1 party 14 qaybtii 14aad waxaa noo socdaa English speaking qaybtii waxa weeye isbuucan aan qaadana waxa weeye waa qaybtii hadalka luqadda ama English speaking course aan ugu magac darnay markaa la socda insha allahu tacaala qaybtan marka waxay ku saabsan tahay pronunciation oo macnaheedu yahay dhawaaq kalimaadkan soo qaadanay unbaa lagu dhawaaqayaa pronunciation marka cashir kastoon qaadano markaan qaadano sheekada waxaa ku xiga labada qofood sheekaystaan yani questions and answers su'aalihii jawaab iska weydiinayo sheekadii la qabto sheekadii waxay ku saabsanayd laba vocabulary kalimaad saddexna waxaa weeye pronunciation oo ah dhawaaqii marka pronunciationka waxaa nooga hore waxa weeye human resources department marka waxaan ku sheegaynaa waa waaxda shaqaalaha marka human resources waa shaqaalihii departmentina waa maxay waa waaxdii marka haddaan midmid inagu macneeyo human waa bini aadankii resourcena waa ilaahay khayraadka uu siiyey maxaa ka mid ah mentally qofka bini aadanka mentally iyo physically buu aqoon u leeyahay mentally maxaan ka wadnaa yani qofka aqoon hadduu leeyahay wuxuu ku shaqaynayaa aqoon physicallyna waa maxay maxaan ka wadnaa qofka ilaahay hadduu xoog siiyey wuxuu ku shaqaynayaa xooggiisii oo skillka yani xooggiisa ahaan ku shaqaynaya marka resourcekaas ayaa waxaa la yidhi marka human resources aa isku yidhi waa shaqaalihii marka shaqaalaha marka maxay ku shaqaynayaan imaa inuu qofka maskaxda ka shaqeeyo xafiis fadhiyo iyo imaa inuu marka maxaa qofkani uu xooggiisa isticmaalo departmentina waa waaxdii marka human resource department waa waaxda shaqaalaha
bilingual waa qofka ku hadla laba luqadood. part-time job part-time job waad garanaysaan waxa weeye waa shaqada qofku markuu shaqaynayo ama gelin ama half 8 saacadood ka mid ah. haddaad gelin shaqaynayso half baad shaqaynaysaa, haddaad 8 saac shaqayso full time baad shaqaysaa. marka part time marka waa maxay? waa wixii ka yar 8 saacadood oo ah 4 saac. marka full time jobna waa shaqo yani dhammaystiran oo ah 8 saac qofku inuu shaqeeyo isbuuc maalintii. marka 8 saacadood ayaa waxaa loo garanayaa full time job. marka 8 saac ka badan overtime wey, waa waqti dheeriya marka qofku shaqeeyo. overtime waxay leedahay waqti ka dheeraada 8 saacadood. succeed waa guul. succeed waa guul. marka waxaa nooga xiga look for a job. qofka marka shaqo raadinaya wuxuu leeyahay I am looking for, waxaan raadinayaa a job shaqo. marka look for markay raacdo, look at markay raacdo waa eegid, look for markay raacdana maxay? waa raadin. look for a job shaqo raadin. look for a job shaqo raadin. I want waxaan doonayaa a part-time job shaqo markaa yani part-time ah. do you know part-time? yes you know it. waa 8 saacadood marka laba loo qaybiyo oo part-time. wixii lagu heshiina ama gelin ha noqoto oo gelinka hore ah gelinka dambe ah, ama habeenkii ha noqoto, ama ha noqoto qofkii la yiraahdo khamiista iyo jimcaha kaliya noo shaqeeya isbuuca. yani waa heshiis. laakiin part-time waxaa laga wada keliya waxa weeye wixii ka yar maalintii in la shaqeeyo 8 saacadood oo ah 4 saac marka wixii la mid ah. marka casharkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay lesson 1 part 14 pronunciation dhawaaq. marka human resource department waa maxay? waaxda shaqaalaha. bilingual waa maxay? waa luqadii. marka yani qofka ku hadla bilingual laba luqadood ku hadla. marka part-time jobna waa maxay? shaqo markaa yani part-time ah. marka full eg af Soomaaliga lafta ku fahmi kartaan. part waa qayb, fullna wax buuxa weey. part-time job iyo full-time job waa kala fahmi. succeed waa guulaysasho. qofka marka ku guulaysanayo shaqo wuxuu leeyahay insha Allah I will succeed. marka I will succeed ku guulaysasho. marka look for raadin a job shaqo. look for a job. I want waxaan doonayaa a part-time job shaqo marka part-time. lesson 1 cashkii koowaad part 15 waana qaybtii ugu dambeysay lesson 1ka. real Englishka oo aan ku jirnay ayaa insha Allah taala wax ka qaadan doonaa qaybtii ugu dambeysay. marka waxa weeye waa lesson 1 cashkii koowaad part 15. marka waana qaybtii ugu dambeysay. waxaan bilaabi doonaa insha Allah taala waxa weeye next week isbuucaya soo socda qaybta cashka laad. marka okay hore aan socon. maanta waxaan qaadan doonaa marka waxa weeye conversation practice. wada sheekaysigii inaan practice kareyno, inaan aan ku celino marka oon practice kareyno. marka waxaan baran doonaa marka waxa la yiraahdo appearance oo ah muuqaalka, and opinions oo iyo fikradaha. marka opinions waa fikrado, appearance waa maxay? waa muuqaal. marka shay baa lagu sheegayaa, waxaad sheegaysaa muuqaalkiisa iyo sida kula tahay. your opinion fikradaada dhibanaysaa. marka idea, opinion waad arki doonaa iyagoo badan. marka maanta waxaan nagu cusub waxa weeye waa opinions oo fikrada ah iyo appearance oo ah muuqaal. marka shayga marka aad doonaysid inaad muuqaalkiisa soo bandhigto ama aad ka hadlayso qof muuqaalkiisa waxaa la yiraahdaa appearance. marka conversation practice waxa weeye ciwaankan maanta waa conversation practice, appearance and opinions. in conversationkii aan practice karayno, aan ku hadalno, haddana aan isweydiino appearance suu kula muuqdo shaygan oo ah iyo an opinions aadna dhiibato maxay? opinion fikradaada. marka Teresa hadashay waxay tiri what do you think? maxaad u malaynaysaa of this suitkan? marka muxuu ku leeyahay? what do you think? marka waxa weeye fikirkaaga dhiibanaysaa. marka what do you think muxuu ku leeyahay of this suitkan? markaad hadasho maxay kula tahay? marka yani suitkan. marka what do you think maxaad u malaynaysaa of this suitkan? marka Salfia waxay tiri it is simple. waa mid iska caadi simple waa wax fudud macnaha waa iska caadi but lakin very nice aad u fiican yahay.
It's simple but very nice. يعني wax simple wax saas weyn uma aragto laakiin aad buu fiican yahay fikrada ahaan markay ka hadlayso. It's simple but very nice better. waa wax iska caadi ah oo simple oo يعني wax fududa but laakiin very nice waa mid aad u fiican. Teresa hadashay haddana waxay tiri what do you think maxaad u malaynaysaa of this outfit dharkan markaa. Outfit horaan usoo sheegnay waa dharka qofka subax kasta dharku xidho oo meel gooni u xidho waxa weeye outfit. dharkii waxaa la yidhahdaa outfit. What do you think of this outfit? waa maxay markaa yani dharkan maxaad u malaynaysaa. markaas selfie waxay tiri I like it waan jeclahay but laakiin it's kind of conservative. Conservative markaan macneeyo sida caadiga luqadda marka siyaasad ahaan laga hadlayo waxa la yidhahdaa qoyar socod qof markaa yani dhexdhexaad ama maarata qoyar socod baa la yidhahdaa. laakiin hadda halkan waxaa noogu jirtaa dhar markaa dhaqan ahaan la qaato oo dadku ay jeceliin si traditionally ah si dhaqan ah markaa. I like it waan jeclahay but laakiin it's kind waa nooc of conservative markaa. Conservative waxa weeye waa wax culturally ama traditionally dadku ay qaataan dhaqan ahaan markaa dhar iska caadi ah markaa dadku qaataan oo la isla yaqaan. Teresa waxay tiri what do you think of this outfit kana maxaad u malaynaysaa markaa. What do you think of this outfit dharkana maxaad u malaynaysaa. Wow bay tiri ajiib wow marka way yaabtay waxay tiri wow that's beautiful. Wow that's beautiful yani waxay tiri waa mid qurux badan. If you buy that haddaa kaa soo iibsato I will borrow it waan ka amahan doonaa markaa ka yani borrow waxaa la yidhahdaa amahasho shayga qofku marka uu yani dharkaa soo iibsatay oo kaa qaato oo ku soo celinayo waa borrow markaa. deyn bay la mid tahay qofku markaad meel dukaan ka soo qaadato lacag markaad ka soo qaadato lacagtaasna aadan bixinin waa borrow. maxaa la yidhahdaa borrow marka if you buy that I will borrow it waa kaa qaadan doonaa waxay tiri borrow it waa maxay sida soomaalida isticmaasho tabal af soomaaliga u jira maana weli waa la isticmaalaa. marka aan ku celiyo cashirkeena isagoo English aan akhriyo marka hore. Conversation practice appearance and opinions. What do you think of this suit? It is simple but very nice. What do you think of this outfit? I like it but it's kind of conservative. I like it but it is kind of conservative. What do you think of this outfit? Wow that's beautiful. If you buy that I'll borrow it. marka aan ku celino soo Soomaali ah. Conversation practice waa sheekaysiga aan conversation gareen on practice gareen on ku hadlayno waxa weeye marka appearance and opinions. waxaan ka hadlaynaa sida shaygu u muuqdo iyo maxay fikradeena marka wuxuu kula muuqda. su'aal ahaan ka ugu horeeya marka la weydiiyo Teresa ay tiri what do you think maxaad u malaynaysaa of this suit kan waxay tiri it's simple waa wax iska simple wax iska fudud oo iska caadi ah but laakiin very nice aad u fiican marka. aragtida appearance waxay u aragtay wax iska simple ah laakiin fikradeedu waxay dhibatay inay tahay hadana very nice wax marka aad u fiican oo halkaas ay u aragtay marka. What do you think of this outfit dharkana maxaa u malaynaysaa. I like it waan jeclahay but laakiin it is kind of conservative waa nooc markaa yani conservative iska yani waan idin sheegay conservative waa wax traditional dadku qaataan dharka macnaha dadku ay dhaqan ahaan ku labistaan macnaha. laakiin macnaha marka xisbiga laga hadlayo waxa la yiraahdaa xisbiga conservative-ka xisbiga qoyar socodka macna ma raacsana intana ma aha intana waa dhexdhexaad waa qoyar socod Soomaaliga iska taqaanin. What do you think maxaad u malaynaysaa of this outfit markaa. dharkan ay tiri wow that is beautiful kaasi wuu qurux badan yahay. If you buy that haddaad soo iibsato I'll borrow it marka qaarkood waa ka qaadan doonaa markaa. I'll borrow it marka waxaan ku sheegay amahasho deynsasho wax markaa soo qaato qofkaasi qaadanayo oo laakiin qofkaasi ku soo celin doono yani marka lacag lagu bixin iminka tusaalahan waa soo amahatay lacagtaas
shaygaas oo amaahti lacagta waa bixin doontaa laakiin kan iyadu waxay leedahay I'll borrow it oo macnaheedu waxay ka wadataa waa kaa qaadan doonaa waan kuu soo celin doonaa way markaa waa maasantiin dhammaantiin cashir kasta markaa oo ku saabsan qaybtan waxa la yidhahdo real life englishka real english yani kan aan qaadan iminka oo real life english ah wuxuu noqon doonaa insha Allah tacaala in 4 qaybood marka koowaad waxaan qaadan doonaa waxa weeye conversation mar labaad questions and answers su'aalo iyo jawaabo oo cashirka ku saabsan mar saddexaad vocabulary kalimaad oo kuwii ku saabsan inaad fahantaana mar afraadna waa maxay يعني inaad la aragno vocabulary-ga iyo pronunciation-ka dhawaaqooda shanaadna waxa weeye inaad la aragno appearance and opinions marka qofkiinu yani ka hadlo shaygiisu ula muuqdo una ka dhiibto maxay opinions oo maxay fikradiisa marka cashirka saas ahaan doonaa iminka waxaan qaanay waa lesson 1 kaliya tartiibaan u soconay hadda waxaan u gudbi doonaa lesson 2 إن شاء الله تعالى وحتى قدام بيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Did Mrs. Robinson help me? Yes, she helped you a lot. She was your mentor. What is Sylvia going to do? She's going to a job fair at the convention center. What should I take to the job fair? You should take copies of your resume. Graduate, mentor, job fair, convention center, flyer, resume, Human Resources Department, bilingual, part-time job, full-time job, succeed, look for a job. I want a part-time job. What do you think of this suit? It's simple, but very nice. What do you think of this outfit? I like it, but it's kind of conservative. What do you think of this outfit? Wow, that is beautiful. If you buy that, I'll borrow it.